Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaam walaalaha ugu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janalkayga haddii ay maanta kuugu horeyso janalkeena fadlan sabskaraabta noo taabo gambaleelkana furo saad u heshid muuqaalada dambe aan soo wado maanta waxaa idiin wadaa qiso ku dhacday gabar lagu magacaabo ubax gabadhan ayada ayaa soo gelisay facebook qisada murugada badan ee ku dhacday ayada oo runtii aada u ilmeyneyso ayay ka hadashay qisadaasi ku dhacday muddo laga joogo 2 bilood ayayna ku dhacday ka hor qisadaas ay idiin bilaawo waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan gabadhan oo lagu magacaabo ubax ayaa waxa ay tiri waxaan isjecleen wiilka in muddo ayaan wada soconay muddo ku dhawaad 1 sano ah wiilka wuxuu ahaa wiil qurux badan aadna u dabeecad wanaagsan oo aad ii soo jiita ayay tiri waana ka helay asigana sidaas si lamid ayay tiri oo waxaanu noqonay dad lamaana ah oo isjecel oo isku wanaagsan ugu dambeyn 1 sano kadibna waxaa go-aan ku gaarnay inaan isguursano kadib wiilkii waxa uu igu dhahay bay tiri aabahaaga u sheeg in aan reerkiina idinka soo doonto ayaan rabaa muddo ama waqti si aan u sameysano maalintii dambe aabahey ayaan u sheegay bay tiri waxaana dhahay aabo wiilkaas ayaa isoo doonan doono la soco muddo intaas ku dhawaadana waan wada soconay aabihii ayaa ka wareystay gabadhiisa wiilka xaaladiisa waxa uu qabto waa iska taqaanaa 2 qof markay isguursanayso gabadha markasta waxaa la weydiiyaa wiilka ay guursanayso waxa uu qabto reerkiisa iyo waxyaabo noocaas camal ah ubax ayaa wixii su-aalo ahay aabaheed uu weydiiyey uga jawaabtay kadibna aabihii wuxuu dhahay aabo aniga ninkaasi kuguma ogi oo ninkaasi kulama rabo iska daa waxaa insha Allah aad heli doontaa wiil aad u wanaagsan oo ninka aad hadda ii keensata ka wanaagsan noloshaadana maxay ahayd ku farxad gelin doono ubax ayaa tiri aabo maya waxa aan jeclaaday wiilkan muddo 1 sano ah ayaan wada soconay ballan ayaan wada galnay mana rabo in aan ballantii ka baxo waxa aan go'aansaday in aan guursado sidaas la soco aabihiina waxa uu ku adkaystay aabo ninkaasi kuguma ogi mana kugu duceynin sidaas la soco sidaas ayay ubax iyo aabeed ku kala tageen muddo kadib ubax go-aankeedii ayay qaadatay oo ku adkaysatay in ay ninkii guursato maadaama ay aad u jecleed ninkii ayay isguursadeen meherkoodii marka uu dhaca kadib aabihii dhal ubax ayaa lasoo wargeliyay in gabadhiisii reer hebel ay guursadeen kadibna aabihii maadaama gabadhiisa uu la taliyo oo taladeedii ay qaadan weysay waa uu iska aamuso oo wax uu sameeyay ayuu garan waayay ubax markii la guursaday waxaa la dejiyay tuulo magaalada muqdisho aan u dhaweyn oo aad uga fog ayay tiri kadibna halkaas ayay noloshooda jawi degan isaga jireen wax dhibaato waqtigaas meesan ka sheegan muddo markii ninkii isla joogeen waxa ay u dhashay canugii ayada oo haysato ayay xanuunsatay kadibna waxaa loo soo qaaday magaalada muqdisho dhaqtar ku yaalo dhaqtarkii markii ay gashay muddo ay xanuunsanaysa waxaa loo sheegay in maxaa la dhahaa kilida ay ka fariisata ama kilida ay ka xanuunsan tahay ninkii markii ay u sheegtay inta badan oo dhaqtarka aan ku jirana waxa ay tiri dhaqtarka muusan igu soo booqa jirin oo ehelkeyga oo degan magaalada muqdisho ayaa dhaqtarkii igu imaan jiray intii aan ku jiro dhaqtarka muusan igu imaan inaan taleefan iskala hadalna ma ogiye kadib waxay tiri markii loo sheegay in kilida aan ka xanuunsaday oo kilideeda ay eber ay tahay oo ay u baahan tahay in la bedelo ayaa waxay tiri ninkii waa uu baxay oo waa ka dhoofay tiri wadanka Soomaaliya wuxuuna u dhoofay wadan kaleeto isla markii uu dhoofana waxaa maqlay ayay tiri in uu guursaday markaas ayaa waxay tiri igu cadaatay talo ama wax aan sameeyay aan garawaayay aan soo xasuustay bay tiri taladii aabahay uu siiyay oo aheyd ninkan iska daa ninkii markii uu dhoofay oo xagga meeshii uu tagay oo xaas ku guursaday waxay tiri iska daa inuu soo xariiriyay xitaa taleefan muusan iga qabanin ayay tiri muddo ayaan xanuunsanaa dhaqtarkii ayaana ku jiro bay tiri ugu dambeyn waan soo roonaaday waxaana kasoo bax dhaqtarkii aniga oo weli waxay tiri xanuunkii haya laakiin dhaqtarkii laga soo saaray markii aan ismaqalnay ninkii oo marmarka qaar aan taleefoonka iska wici jirnay maxaa kugu dhac walaalo maxay tahay isbedelkan maxaa kaa waday wadankii maxay tahay bixitaanka ee aadan ii sheegin oo ku qorshaysnaa kadib markaan wada hadalna wuxuu igu dhahay bay tiri abaayo xaas kale baa yeeshtay mana awoodo in aan 2 xaas aan maxay ahayd aan qabo marka saas darteed waxa ii fududaatay inaan ku furo la soco insha Allah reerkiinana u sheeg
waa naxay bay tiri anigoo xanuunsan oo kelida ka xanuunsan canug yar ii joogo ninkiina uu yahay ninkii shalay waalidkii ay dhahayeen ninkan iska daa kuguma ogin ama nin wanaagsan ma ahani ka har oo shalay aan kusoo madax adeega aan kusoo dhiga adkaada oo hadalkii aabahayga intaan diiday ninkii aan guursaday ayaa waxay tiri wixii hordhan ayaan soo xasuusanayay wax aan sameeyana waxay tiri ma gara kareenin waalidkaygana uma sheegi kareenin tan kale nin hadduu marku dhaa waan ku furayaa ha i furin inaad dhahdo waxay tiri ma imaan karto waayo qofka hadduu go-aan gaaray waxa waaye go-aankiisa ayaa u cad oo qofka markuu go-aan soo gaaro iyo marka uu go-aan gaarin waa ay kala duwan tahay maalintii dambe ayaan u sheegay bay tiri aabahay waxaana dhahay tiri aaba ninkii waa waxaan ku heshiinay inaan kala tagno nin xun buu igu noqday aaba sidaas la soco sidaasaa waxay tiri ninkii ku kala tagnay maalintaas ee fiideoga soo duubaysa aad ayay u ooynaysa gabadhaas oo ay facebooka soo gelisay waxayna sheegtay in taladii aabeed haddii ay qaado laheeday intaas oo dhibaato aysan ku dhici laheenin xanuunka ilaah ayaa keenay xanuunkana ninka uusan ku nici laheenin xitaa xaas kale hadduu guursanaya iyada oo xanuunsan uusan furi lahayn ama uu ka tegi laheenin gabdha badan ee qisadan oo kale ee ku dhacday waxaana keenaysa marka hore waalidka nin uusan raalli ka ahayn haddaad raacdid ama aad ka daba carartid waa kuu keliga waayo shalay aabahaaga markuu ku leeyahay ninkaani ka har nin wanaagsan ma aha waayeelka waxaa layidhi korkiis waa wada indho haddii kale waa wada aqli marka aabaha wax uu arkaya ayaa jira ama uu ka fahansanay qofka uu ku dhahaya ka har ama ka leexo laakiin maysan dhicin oo calafka ayaa iska qornaa ilaahayna waxa uu ugu talagalay labadaasi qof inuu canugaas dhexdooda ka beero canugaas ayaana ilaahay kala siiyey kadibna furiinkoodii ayaa dhacay oo waa ay kala tageen maalintaas gabadhaasay ooynaysa ayaan dhageystay runtii codkeeda aad ayaan uga xumaaday horaa waxaa loo yiri tala waalidiida taraanturo ma waayo oo soomaalidu ay ku mahmaahdo marka mar walba ninka aa guursanaysid waalidka haddee raalli aysan ka ahaynin ka leexa ama iska daa waayo ninkan shal ayaa isbarateen berri meel cad ayuu kaaga tagi karaa ama waa uu ku furi karaa oo calafka ayaa dhammaan karo marka aabahaaga macaan ama hooyadaada macaan inaa iska xumaysa nin dartiis aad shalay aragtay waalidkaaga aa u goysid wax wanaagsan ma aha ka digtoonaada insha allah gabdho badan oo sidaan oo kale ay ku dhacda ayaa xasuustaa ama aan maqlay ama aan arkay gabar nin intay guursatay ninkii uu qurbaha aaday 9 sano ku dhawaad ninkii oo ka maqan ayuu sanadkii 10aad uu soo furay markii horena waalidkeeda uu u sheegay in ay ninkaas iska dayso laakiin ay ku madax adeegtay oo ay ku dhiga adkaatay ninkii ay guursatay gabar ayay u dhashay gabadhii ayaa runtii noqotay gabar weyn oo maasha Allah 9 sano jir ah waqtiga uu baxay ilaa waqtiga uu soo furayo muddo aad u fog waaye 9 sano sanadkii 10aad ayuu soo furay markaas gabadhiisii weyn oo runtii hadlayso oo wax kasta fahmaysa ayaa joogtay xilliga uu ka tagay xaaskana wax caruur maysa u heynin oo canuga caloosha ayuu ku jiray marka mar walba qadarta rabbi way qorantahay laakiin ha ku dhiiran inaad guursatiin nin waalidkaaga aysan raalli ka ahayn waayo ragga kulligood ma wada wanaagsan qaar iska xun ayaa jiro laga yaabee nin xun inuu kugu soo aado waalidka haddaad xumaysid nin xunna uu kugu soo aado berri adiga ayay wax kasto duudka kuu saaran yihiin oo dhibaato ku soo gaarto waad mahadsantiin asxaabey muuqaalka xigo intaa ku kulmayna waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo